xaajiga isagana sokor iyo dhiigkar iyo cholesterol iyo waxyaabahaas uu qabay. dhinaca dhiigkarka horta kasoo bilaabo wuxuu yiraahday intii muddo 2 bilooda kaniiniga dhiigka kariya maba qaadan oo dhahay waa iga dagay jirkii wuu qaboobay isagana meel kale badan oo ka caafimaaday caamada jirka waa noo soo noqdeen maasha Allah waa heer sare waaye. Faa'iisa iyadana dhiigkar qabtay waxay lahayd sokor waxay tiri 2 isbuuc markay cabaysaa waxaa daawada ka dareentay waxay ugu dhahday walaalo waa ku qaboobay tiri waa 2 isbuuc kaliya jirkay qabow waa soo galay dhahday hadii sii wadan insha Allah sokorta daawadeeda inay ilaahay sokorta kaga kaxeeya ilaahay uga baryaya iyadana insha Allah. gabar dariska ah hadda waxay kasoo dalbanaysaa oo gaas tabcaan aad iyo aad ula ahayd ayaa daawo rabto wax soo socda aragtid oo ingiriiska soo socda aragto usoo dhiib insha Allah daawo usoo dhiib hadday taalo ingiriiska ay taalan nala soo socodsiin aan ka doonano meesha ay taalo daawada doctor insha Allah. waa kaasaha waa ku salaameynaa ilaa ajar iyo xasanaad aan soo koobi karin Allah ku sii cimri dheer Allah ku sii cilmigana Allah ku siyaadiyo daawadaas ku raadisay caqliga ku raadisay iyo xikmadda ilaahay ku sii siyaadiyo. marka daawadana aniga aad iyo aad dadka kula talinaa sababtoo ah daawooyinka kiimikada leh waxa ka fiican daawo dhaqameedka waxay tirtirayaan xanuunka waa tirtirayaan laakiin daawooyinka kaleeto waa kaalmaati sida hadda jiribka kale dadka waa laga duraa cirbada lagu duraa ayaanay ku haynaysaa way ka bixi haddana duritaan u soo noqon lagu leeyahay. gaaska sidoo kale anaaba waxaa qaadanaya 10 sano ka sii badan wax uu ii taray malaha daawada waa sinacaysiin kaliya gaaska marka hadda daawo dhaqameedka laakiin jilibka waaba tirtirta waa weligiis waxba kuma dhicina aan leeyahay alxamdulillah ilaahu noo siyaadi. marka doctor waa ku salaamaya salaam qaali ah waa ka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.